أركض لصنته ما قالوا وين عاصمته أنت سوق قومي دود أنت سوق مضاد وكل دون الصوماليين السوي ما دينا ما هو حمله أساس الكرامة ويرجيس وأفر حافظ أفر تبيلود باك دقن أفر تبيلود نوية قان بيلو البا حافظ القف في سوق ولا يقنا لا شذاك الكعلك الذي واي بسم الله الرحمن الرحيم دمان dadka Soomaaliyeed mid kasto aad joogtaan nabad iyo barwaaqo ku noolaada runtii waxaad moodaa siyaasiyiinta gobolada waqooyi ama maamulkan la baxay Somaliland oo anagu u aqaano Isaaqland ama Idoorland waxaad moodaa inay u bareereen cayda iyo anjarafaynta dadka Soomaaliyeed koonfurta ku nool gaar ahaan magaalada Muqdisho maalin kastana uu mid la soo istaagnaado caydooda iyo anjarafayntooda dadkaasi iyaguna ay leeyihiin waa maaragtay walaalaheen iyo maaragtay ay taageersan yihiin oo qaarkood ay shalay miyay lahaayeen Cornel Tuke oo nin reer Somaliland ay lahaayeen waxa weeyaan waa ninkii xasuuqay waa ninkii saan sameeyay ay lahaayeen iyagana kuwii xasuuqay iyo kuwii laayay ay la nool yihiin oo ay la joogaan oo waliba darajeeyeen oo xilal siiyeen markay halka joogto laakiin tan maanta taagan waxa weeyaan Cabdiraxmaan Salteeko oo maayarka Hargeysa ama duqa Hargeysa oo wuxuu yiri bisada Hargeysa waxay ka nasiib badan tahay ama ka fiican tahay ruuxa Muqdisho ku nool waayo bisada Hargeysa waxa weeyaan nabadgelyo ku nooshay laakiin qofka Muqdisho ku nool nabadgelyo kuma noola oo waxa weey naftiisu maalin kasta waxa weey wala diliyo wala tooganaya ama wala qaxinaya horta Cabdiraxmaan Salteeko waxaan filayaa inuu isweydiinin ama uu og yahay halka Muqdisho dhibaatadu kaga socoto oo iska indha tirayo waxa moodaa inuu ku diganayo waliba waxa uu si dheer inuu ku diganayo oo ku daacsanayo dadkii uu dhibaatooyinka u geystay isagu Hargeysa oo uu duq magaalo ka yahay waxa ku nool argagixisada Soomaaliya kharbadaysa waxa laga xukumaa ama laga maamulaa website-yada argagixisada Soomaaliya ee adeegsato Hargeysa laga maamulaa Hargeysa laga hagaa Hargeysa wax laga qoraa Hargeysana laga galiya wararka ugu dambeeyay argagixisada halkaas laga soo duubaa idaacadahoodu halkaas ka howlgalaneen waa Hargeysa meesha waxa soo dhan laga sameeynaya argagixisadu madaxdoodu waxay ku nooshahay Hargeysa oo dhex jooganeen oo ay waxa weyn waliba qasriye u kreeyeen oo qasriyada isku noolyihiin oo waliba lagu biilaayo lacag lagu siisiyaa dhalinyaradana looga diraa Hargeysa laga diraa kuwa isqarxinaya iyo kuwa dadka leynaya Muqdisho ku leynaya Hargeysa laga soo abaabulaa laga diraa Cabdiraxmaan Salteeko wuu ogyahay dabcan laakiin wuxuu rabaa inuu dadka Muqdisho ku nool oo ku daacsado oo waxa weeyaan iyaguna ay ku hayaaneen waa walaalkeen waa Soomaali iyo wixii la midka ah marna Soomaali ma noqonayo qof dad Soomaaliyeed waxa way ku dacdacsanaya oo dhibaatadooda ka talinaya qof dad Soomaaliyeed dhibtooda iyo inuu qarxiyo inuu laayo inuu xasuuqo inuu aarsi inuu baabi'iyo ku fikiraya marna Soomaali ma noqonayo Soomaaligu waa qofka dadka Soomaaliyeed la jecel wanaagga la weeyaan ma ahan qofka dadka Soomaaliyeed leynaya ma ahan qofka dadka Soomaaliyeed argagixisada leynaysa ku taageeraya oo ku dacminaya ama maartay ku maalgelinaya Cabdiraxmaan Salteeko iyo maamulka Hargeysa jooga Hargeysa ka taliyaba waxa weeyaan waa hooyga iyo meesha laga soo abaabulo argagixisada Soomaaliya weeyaan argagixisada Muqdisho baabiinaysa dadka Muqdisho lagu baabinayo dadka soo abaabulo ama halka laga soo hayaa waa Hargeysa weeyaan maalin kasta caruur boqolaal ah baa Hargeysa laga soo diraa oo Muqdisho loo diraa si ay dadka Muqdisho ku nool u soo laayaan u soo baabiyaan waxaad maqlaysaa dad baa la laayay qofkii laayay ma garanayno qof buu halkan qof buu ku toogtay ma la garanayo waligeen ma aanan arag yuu yahay Hargeysa ka yimi barina Hargeysa ku noqonaya markuu dadka laayo oo dadka baabiyo diyaarad buu raacay Muqdisho raacay Hargeysa dib ugu noqonaya dhibaatada Hargeysa ay soo abaabulayso Muqdisho ka dhacaya runtii way ka badan yihiin milyan way ka badan yihiin
dadku way ogyihiin dadka reer muqdisho dabcan haddaysan sanda training way ogyihiin wayna xaqiiqdan way ka dheeraysiin qaarkood wayna ogyihiin halka dhibaatadu Soomaaliya ee maantay weliba kooxaha hargeysa meesha laga soo hagayo iyo meesha laga soo dacminayo iyo meesha laga soo taageerayo waa la yaqaanaa waa la ogyahay weliba kooxdan argagixisada oo shabaab la yiraahdo gaar ahaan especially kooxdani waxa weeyaan halka ay ka timi oo hooyigeeda ahi waa hargeysa weeyaan sida kooxda Daesh la yiraahdo ee waxa weey dhibaatada ka wada Soomaaliyeedana ee uga timi Puntland uga timid waxa weeyaan ayay uga yimaadeen kuwanina hargeysa uga yimaadeen xaqiiqatan oo run ah oo aan been ahayn oo la wada ogyahay dadka Soomaaliyeedna ogyihiin weeyaan waa xaqiiqo weeyaan waxaan arkay aniga oo hargeysa ku dhaxarkay maraan joogo hargeysa waxaan ku dhaxarkay niman qoraaya ama wax bixino gelinayo oo aan ilaa hadda muuqoodii aan arkayay oo aan muuqooda qaarkood aan garanaya haddii aan maanta arki lahaa oo qoraayo website-yada argagixisada oo gelinayo warar gelinaya oo aan soo dul istaagay markaan soo dul istaagana linkigi maanta ama website-ka soo xiray oo soo dejiyay oo waxa weeyaan hargeysa dhex fadhiya markay kuwaas ayaa u baahan salteeko inaad waxa weeyaan wax ka qabato masiibadaas halka ka socota inaad wax ka qabato ayaa u baahan kuwaas inaad wax ka soo qabato way intaadan ka hadlin waxa weeyaan hargeysa wax lagu madiliyo hargeysa wax lagu baabiyo hargeysa maalin kasta dhibaatooyin baa ka dhaca balaayiin ka badan boqolaal dad ayaa waxa weey lagu dhibaateeyaa hargeysa waxa weeyaan lagana soo shirqoola hargeysa adigu dabcan waad ogtahay taas laakiin ma hadliis afar xaafadood oo afar reer kala degan yihiin ma ahan inaad marka qaarkood la sinto magaalo weyn oo caasimadahu intaas oo qowmiyadood iyo intaas oo ummadood oo kala duwan oo Soomaaliyeed ay isugu yimaadeen ma aha meelo isla sinmi kara ma way hargeysa waa afar xaafadood afarta beelood baa kala degan afarta beeloodna way yaqaan beel walba xaafadeeda qofkii soo gala waa la yaqaana tusaale anigu haddaan imaado hargeysa waa la iga garanaya dadka reer hargeysa oo way yaqaaneen xagee ka timid waa lagu leeyahay ma Puntland bad ka timid dabcan waa lagu garanaya qofka xamar ka yimaada ama qulsho ka yimaada xamaraawigi bay leeyihiin oo xamar buu ka yimid weli markay xaqiiqada in dib loogu noqdo fiican waxa weeyaan intaadan bisad iyo ku wareegin daanyeer iyo wixii la midka intaadan ku wareegin waa inaad ku wareegtaa waxa weeyaan dulmiga dadka dhexdaada ku sameynaya ee aad adigu ogtahay kuwaas waa inaad ku wareegtaa kuwaas waa inaad aadaa haddaadan ogeyn dabcan aadan warka haynina kuwaas waa inaad baritartaa maartay aad raadisaa laakiin haddaad ogtahayna hadda waxa weeye inaad ka hadasho ood ku digato dad Soomaaliyeed waxa weeye waxaan u arkaa reer hargeysa inay jawaab ku filan ka bixin doonaan maalin aan fogeynna waxa weeye kooxdan afduubka ku haysata hargeysa iyo dadka maartay Soomaaliyeed ee Soomaalinimada jeclaa ee Soomaalida xalaasha ahaa ee jeclaa dadkooda Soomaaliyeed jeclaa maalin aan waxa weeyaan aan fogeynna ee idinka waxa weeyaan iska kintu qaadi doonaan waan rajaynayaa taasna insha Allah biidnillaahi kareem hargeysana ay ku soo noqon doonto hooyadii Soomaaliyeed hooyadii fanka Soomaaliyeed hooyadii waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed midowga ummadda Soomaaliyeedna ka talinaysa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.